wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Lugboor iyo xubno ku tirsan wasaaraddiis iyo geeka booqasho ka saaday xabsiga dhexe magaalada Baydhabo iyo Kajraan maxaabiis aadan tiro badan wasiirka mayba uu kormeer guud ka soobiyay qeybo shal duwan ee isku koobaya dhismaha xabsiga isa soo kala garoonka banooniga lugtiyo ka dheelayaan maxaabiista xabsiga Kiyaala iyo kucheenadiis maxaabiista ka jarta xabsiga iyo wasiirka ku wareysaday xaaladda iyo caafimaad tanjiifsho isas oo kala tan raashinka iyo aamayaan taliyaaga ciidamada asluubta xabsiga Baydhabo oo uu wasiirka booqashada ku weheliyay yaan ku horeyn ku hadlay booqashada wasiirka walibana uu ku codsaday wasiirka in madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya in ciidamada asluubta la ku caawi baahiyuusa sheegay in xilligan iyo dareemahayaan xabsiga dhaha Baydhabo ka dhawaaw ciidanka asluubti maamulkii adkorka ku kumaasiha ka dhawaaw tirada guud ma bisatan warqada keen ku qoran in banaanka idaad la ka sheega ma haaladan ida boqolkiiba aan faylan wala ko filaya day kulay ya lusu yasuubidi ida keen kama hadanagaan waayo ma bisti maal iidin lan fiina wayta xukumo iyo lan والترسا وشالنا ونص إذا كأسلوب سيس ما حكومة حبس دايم واي ذات كوا البترسا السنة مثلا مسين باللوين بتيران لكن ذات كي أو بيجوا بهرناين إما على محبيس يجيك كي مهادريان إلهي جسقل إلهي كي جاسي سواء كان سجودا ونروح إلهي أقبل تانكل والبدن أمباهن المدن وسير إذا كأسلوب أنت ما دلك دي لكن محبيس أنت كجاري أنت ما ينبضن إذا مدي لا شيء بقولي هكذا كوكين إذا كذا هربت لان أسلوبه أن دخلنا يعني يري booqashada kureed iyo wasiirka saxaafadda la hadalay ma boonuso moojay in iyo waajib ku saaran yahay ata iniyo la dareeraan xaaladda maxaabiista iniyo daryeelaan ma boonuso moojay inii maxaabiista ee ciidamada asluubta ee waardiyeeyo xabsiga u soo inshaani afar neef oo eran oo soo ka talagalay iniyo oo ka afursadaan waa ko wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Lugboor oo arrimo booqashada teetis ku hadlaaw in wabad taliyaha xabsiga dhexe magaalada madaxda Baydhabo saraakiishiisii saraakiil ku-xigeenka dhammaan dableyda inta ka sugan xabsiga waraysiinka salaamay salaanta islaamka بعد السلام الحمد لله إلهي نوافج يعني نتسك كانوا جاك ما نتسك شان وما إلها إلهي نيسورة اليوم محله كل يجاك باغشة يوي هاي تيه ما دام ما إلها وقتها إلا سدح بلاد أفر بلاد أو نحط أنكوين حبسه إني وحيابها أسكسوني جابك أسيالو إما حبيستك هيرن تردي أجانو ما دام لك جرو باللي بركة سنة تيه ما إلها إلهي خير نينك دهبوي جاك لك جرو إني ما إلى الرأي حسبوغنو ولي جيرن ولي عافمات قبو محبيستو Sheekh Xasan Lugboor wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya may basas oo kale isu xusay iniyo qorsheeyahayaan dadaal walbaniyo ku jeysada doonaan in la cafi maxaabiista dambiyada yaryar jeysadii ee ka jar xabsiyada magaalada Baydhabo oo xabsigan ka jaro dad mashiidi dad al-shabaab dad may la raay dambiyo isku yaryariin dad dambiyajo isku weeynin bani aadamna haba u sameelka kulumo nooc kasta in iska jaro karo isku kooy karo dadkaas oo may la raay xabsiga sidii leen ka talagalay leen hay wala fokaday leen lahayn wala la dilay leen lahayn wala la gadaday leen lahayn wala dhuumaday leen lahayn tanyeeda way waa eediyad wala inka kama hadnagaane dadaalka asluubta soo bidi eeda aan kama hasanto waan may waa waajibkeenu إلهي نسينك أول مريء دد بدننا دلك دبك هاي جعن كهايتن لما بني آدم هاي ودبشي بدني مركز سلاس درادية ولي رجينا إني ددالك لك درتان ونو نسينك كرمير دون إن شاء الله باهي إلهي بيكر لكن إنه مركز إنه جاك بني آدم أنين خاصة دولة دي كونفرق أنه ولا عجيبه إنه أودنا أنه والمحقق عنه إن شاء الله ولي رجينا دتك أنت كهيرن oo in iska jaro mayl raayay dad oo dambiyo culus galay dalka dambiyo ku galay iyo dad mayl raayay dambiyo yar hirin jaro wala iska diyaasay wasaaradda in dadka dambiyaasho yaryariin
waqtul afdarka in fasax helaano mayl raay lagu dhiyo habsiga taas wasaaradda ololaasa angalaasa codsigaas oo ilaa heer madaxweyne wada doogno insha Allah lanki dalka dambe ku galay masna shakhsi mayl raay goon ee dambe ku galay taas goon way ama dambiyadii yaro mayl raay guud ahaan dalka leen ku galay xabsiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo xilligan may baka jare maxaabiis fara badan oo la kashal eedayaw inay dalka ku jeeysadeen dambiyo shal duwan oo iska jara dil dhac kufsi intaba Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo.